dowladda Mareykanka ayaa la sheegayaa in dhaawac weyn uu soo gaaray sumcadeeda iyo waliba diblomaasiyadeeda kadib markii fadeexad culus ay kala kulantay dowladda dalka Iran. haddaba warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa maxay tahay fadeexada Mareykanka ee kala kulantay Iran, dhaawaca ee soo gaaray diblomaasiyadda Mareykanka yaa ka dambeeyay, maxayse tahay sababta dalalka Yurub ee xulufada la ahaa Mareykanka hadda ay u buunbuuninayaan bahdilka iyo fadeexada soo gaaray Mareykanka. soo dhawaada, waxaan ahay Abdifataax Durdur, halka aad naga daawanaysaan waa Durdur TV. dowladda Jarmalka ayaa si aan caadi ahayn u dhalishay Mareykanka kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka uu sheegay in hoggaanka Iran ay si muuqata u bahdileen Washington intii lagu guda jiray wadahadaladii u dambeeyay. ra'iisul wasaaraha Jarmalka wuxuu sheegay in Iran ay si xeeladaysan u maareysay wadahadalada, isagoo tilmaamay in Mareykanku u muuqday mid aan lahayn qorshe cad ama istiraatiijiyad midaysan. wuxuuna carabka ku adkeeyay in Tehran ay ka faa'iideysatay kala daadsanaanta siyaasadda Mareykanka, taas oo keentay buu yiri in natiijooyin muuqda laga gaari waayo wadahadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran. sida uu sheegay, Mareykanka waxaa lagu riixay go'aan degdeg ah oo aan si fiican loo diyaarin, halka Iran ay muujisay dulqaad, qorshe fog iyo awood ay ku jihaysay wadahadalada. arrintan ayuu ku sifeeyay guul diblomaasiyadeed oo Iran gaartay, halka Mareykanku uu galay xaalad hoos u dhac sumcad ah. wararka ka soo baxaya kulamada ayaa tilmaamaya in wadahadaladu ay ku saabsanaayeen arrimaha nukliyeerka, unaqabataynta dhaqaale iyo amniga marinbiyoodka Hormuz. Iran ayaa la sheegay inay soo bandhigtay shuruudo adag oo ay ka mid yihiin in unaqabataynta si buuxda loo qaado ka hor wax tanaasul ah intaysan bixin. dhanka kale, Mareykanka ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu cadaadis dheeri ah saaro Tehran, balse aan helin taageero buuxda oo ka timaada xulufadiisa Yurub, taas oo sii adkaysay mowqifkiisa. dadka falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka ayaa aaminsan in hadallada ka soo yeeray Jarmalka ay muujinayaan kala fogaanshaha sii kordhaya ee u dhaxeeya Washington iyo qaar ka mid ah xulufadiisa reer Yurub, gaar ahaan marka loo eego sida loo wajahayo Iran iyo siyaasadda Bariga Dhexe. xiisadan ayaa imaanaysa xilli gobolka uu horeyba u ahaa mid jilicsan, iyadoo arrimaha nukliyeerka Iran, doorka Israa'iil iyo amniga marinbiyoodka Hormuz ay horinayaan walaaca caalamiga ah ee ka jira gobolka Bariga Dhexe. kaliya dowladda Jarmalka ma ahan dowladaha ka hadlay bahdilka loo geystay Mareykanka, sidoo kale waxaa jira dalal kale oo ku yaala Yurub oo sheegay in Mareykanka wadahadaladii uu la galay Iran uu kala kulmay wejigabax, sumcad dil iyo dhaawac weyn oo soo gaaray diblomaasiyadiisa kadib markii Mareykanka lagu eedeeyay in wadahadaladu uusan la tagin ama uusan ula shirtagin wax ajanta ah ama qorshe cad, halka Iran ay qorshayaal fogfog halkaasi la timid. adigu sidee aad u aragtaa?